waxaa maanta mar kale xorriyadiisii dib u helay wariye samafale cabdimaalik muuse coldoon. Samafale coldoon ayaa dareenkiisa ku aadan sii deyntiisa iyo in mar kale uu xorriyadiisa helo ka hadlay kadib markii la soo daayay. Coldoon oo warbaahinta la hadlaya ayaa waxa uu intaasi ku daray in sii deyntiisu ay timid kadib markii madaxweynaha Somaliland uu cafis u fidiyay isaga. dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaa halkan dee la jooga warbaahintii intayna daawanaysa iyo idinkaba waxaan idin xaqiijinayaa maanta inaan xorriyaddeedii helay. maanta ay taariikhdu tahay 15 Shawaal 1441 hijriya oo waafaqsan 6 bisha 6 2020 anigoo la xiray magaalada Burco laga soo qabtay taariikhdu markay ahayd 17 bishii afraad ee 2019 maanta xor baan ahay. إلهي بأنه مهنغية لك الحمد يا رب حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. إلهي بأنه مهنغية مهنغا نسوكو بكرة وحن دين شيء يا عداد سويدين إنسان قاب كان كصوب حي وحن كصوب حي عفس مدحوينه أيام كصوب حي. intaasi kadib ayaa wariye cabdimaalik muuse coldoon waxa uu u mahadnaqay cid kasta oo ka qayb qaadatay sii deyntiisa iyo in ay kaalin weyn ka qaateen. waxa uu xusay gudoomiyaasha labada xisbi ee mucaaradka Somaliland ee UCID iyo sidoo kale wadani. halkan waxaan uga mahad celinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay soo deyntayda. ma magacaabi karayo waa badan yihiin aad bay u badan yihiin. si gaar ah waxaan ugu mahad celinayaa oo runtii yani waxa weeye goolkii ugu dambeeyay dhaliyay gudoomiyaha xisbiga wadani mudane cabdiraxmaan cirro oo runtii ku dadaalay inaan xorriyaddeedii helo. waxaanan ilaaweyn oo isaguna ka qayb qaatay gudoomiyaha xisbiga UCID injineer Faysal Cali Waraabe oo isaguna sii deynteedan ugu dambeysay ka qayb qaatay. sidoo kale waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha Somaliland Muuse Bixi Cabdi أقبلات أو كأقبلي إن الحرية دي هلا. وحن كلو مهد علنيا قف إيو دينع إيو هيئات عد كست أو كقيب قاضتي. إن المانت الحرية دي هلا أو كحما إن حدناضو أو دعيني أو كتامي أو رتشيني يمرون إن الحرية دي هلا. وحشرة ديو أنا لقرني. أو دعالة العالم كتشوجة. وأن مقعدو دلاقون. أو خيري ويني رتشيني. oo garab istaag weyn ii muujiyay intan gudaha ku jiro. ilaahay baa kuwa og waxaan mahad celinayaa hay'adaha xuquuqda aadanaha ee ka shaqeeyay ee arrimahayga ka hadlay kuwa wadaniga hay'adda xuquuqda kuwa wadaniga sida hay'adda xuquuqda aadanaha ee Hargeysa iyo qaranka iyadana waan mahad celinayaa. waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa oo aan marnaba aan iga hadhin Amnesty International منظمة العفو الدولية iyadana waan mahad celinayaa. hay'adda Human Rights Watch iyadana waan mahad celinayaa. baarlamaanka midowga Yurub oo arrinkayga ka hadlay isagana waan mahad celinayaa. jeel baan ka soo baxay waxa weeye warbaahintuna waxa weeye halkan aad igu timaadeen waxa jira dad badan oo aanan ogeyn oo dhaqdhaqaaq sameeyay. waxaan u mahad celinayaa saaxiibadaydii muxuu ahaayay garabkayga ahaa markasta muxuu ahaayay arrimahayga ka hadlayay arrimahayga markasta muxuu ahaayay idila wadaagay ma ilaawi doono. waxa weeye way badnaanayaan oo runtii waxaan diidayaa inaan magac gaar ah xusaan diidaya. ma doonayo maanta inaan hebel iraado haddaan hebel ku bilaabo hebeladu way badnaanayaan. maanta waxaan doonayaa muxuu ahaayay inaan intaa ku soo koobo waxaan si gaar ah oo aan ilaaway oo ay tahay inaan ilaawin hooyaday oo runtii iyadu xidhnayd anigu maan xidhnayn. hooyaday baa xidhnayd waxa weeye Burco ay ka imanaysay halkan ay igu imanaysay waxa weeye garabkayga ahayd ehelkayga waxa weeye sida ay igu samreena jazaahumullahu khayr. maanta anigu halkan waxa weeye hadal argosiya ama hadal maaga ka oran maayo. waxa weeye maanta waxa weeye waxaan wad ogtiin yani marxaladda aynu ku jirno iyo xaaladda aynu marayno waa marxalad muxuu ahaayay ay tahay inaynu gacmaha is qabsano. waxaan ku baaqayaa inaynu maanta gacmaha is qabsano. waxaan ku baaqayaa inaynu bog cusub furno. waxaan leeyahay anigu hadalkii uu ku yiri nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam markii uu jeelka ka soo baxay walaaladii ayaan aniguna leeyahay. waxa weeye shaydaan ayuun baa ina dhex galay wax kale ma jiraan. waxa weeye maanta waxa weeye
xaggii dambe eegi mayno xaggii dambe waan ka nimi bal xagga hore aynu muxuu ahaa u socono inagoo istoosinayna inagoo isla talinayna inagoo aan aamusayn laakiin waxa weeye wixii hore way tageen waxaanan jeclaan lahaa inaynu muxuu ahaa aynu halkaa ku soo koobno wax laga yaabaa inaad su'aalo idinku taagan yihiin su'aalo idinku taagnaana inta badan muxuu ahaa waan ka jawaabay mana doonayna muxuu ahaa waxa weeye wanaag mooyaane wax kale oo inaga baxaa maanta ma jiro cabdirashiid cali bare Somali TV Hargeysa